Bismillahirrahmanirrahim. In the name of God, the most gracious and merciful. Waxaan salaamayaa waxa Somaliland jooga iyo waxayna jecel oo dhan. Waxaan doonayaa inaan halkan idinka soo sheego arrin soo ogaaday. Madaxweynaha Djibouti ayaa doonaya inuu ina shirqoolo oo doonayo inuu ku celiyo madaxweynaheena inaan la hadalno Soomaaliya in la bilaabo wada hadalkii. Ma doonayna waanu diidnay taas waa la diiday. Waryaadeen meedoga dhibaatada loo soo maray rag oo dhintay wadankeena iyo hooyooyinka u ooyay habeen iyo maalin caruurtoodii oo dhimatay reer xamarkaasi dileen war wadankeeni gacantayna ku haynaan aad iyo aad buu wanaagsan yahay haddii 200 kun ee soo socda ehtiraafka xitaa uu soo gaari waayo ku noqon mayno Soomaaliya la hadli mayno aad iyo aad baan wadankeeni u hagaajinay dhibaatadii haynagu celina waan xasuustaa anigu caruura dadkii imika dadkan moogtay dambe ayaan doonayaa inaan xasuusiyo dhibaatada aan soo maray sida sharafta aad ugu maraysaan wadankeena والله بايدن ugu marayn hadii xamar lagu noqdo wallahi nagu celinina diida shirqoolka u Djibouti wado hala diido uma baahnin shirqoolka u Djibouti wado ma doonayno aniga arrintan soo ogaaday wuxuu doonayaa inuu madaxweynaheena ka dhaadhiciyo in afkarad la bilaabo afhadal la bilaabo wada hadal la bilaabo Soomaaliya iyo Somaliland waynu diidnay uma baahnin nimankan dhibaatay wadaan kaligood ma noolaan karayaan iimaankii baa ka tagay nimankan Somaliland bay doonayaan la sheekaystaan si Ameerikaanku lacagtii ugu soo celiyay laga joojiyay dooni mayno nimankan dooni mayno iska ilaaliyo Djibouti wassalaamu calaykum